Assalaamu calaykum. Jimco wanaagsan. Muuqaalkeenan kooban waxaynu ku arki doonaa 10 xaqiiqo oo ku saabsan sirdoonka Pakistan. Hay-adda sirdooneed ee ugu wanaagsan dunida. American Crime News waxa uu ISI u tixgeliyey hay-adda koobaad ee sirdooneed ee ugu fiican dunida, waxayna kaalintaas ku kasbatay shabakadeeda sirdooneed ee dunida ka howlgasha oo ah mid isku xidhan, ayna u dheertahay aqoon dheeri ah oo ay u leeyihiin dhammaan howlaha ay fulinayaan. ISI waxay kaalin muhiim ah ka ciyaartay fashilinta boqolaal shirqoole ah oo loo maleegay dalkooda, waxayna qudha ka jartay kumanaan shakhsiyaad oo dambiyo ka galay dalka Pakistan. Malaha jaajuus labowjiile ah. ISI waxay caan ku tahay inaysan lahayn wax basaas labowjiile ah oo u shaqeeya hay-ad ka baxsan ISI-da Pakistan. Waxaa arrintan ku mahadsan saraakiisha hay-addan oo waqtigooda iyo garaadkoodaba u huray dabagalka iyo ilaalinta basaasiinta u shaqeysa hay-addan. Taageerta xoreynta Kashmir. Ilaa waqtigii la aasaasay, ISI waxay ka qayb qaadanaysay howlgalladii lagu xoreynayay Kashmir. Sanadkii 1987 waxay howlgalladaas ka gaadhay guul weyn. Waxa uu ahaa Operation Tubag, oo ahaa magac sireedka howlgalkii ISI ay uga bilowday howlgallo dhanka basaasida militariga Hindiya ah. Gobolka Kashmir, qaybta Hindiya ay haysato, ISI waxay ku kaalmaysay taageero lacageed iyo mid ciidanba kooxihii dagaalka kula jiray Hindiya ee gooni u goosadka ahaa. Howlgalkan waa uu sii weynaaday, waxaana ka dhashay howlgallo waaweyn oo ciidamada Hindiya ay ka sameeyeen gobolka Kashmir, waxayna tani sababtay in Kashmiriyiinta aad loo gumaado. Si kasta ha ahaatee, ISI waxay weli door muhiim ah ka ciyaartaa taageeridda kooxaha Muslimiinta ah ee xoreynta gobolka Kashmir, qaybta Hindiya ay haysato. Hay-adda sirdooneed ee ugu weyn dunida qaab dhismeed ahaan. ISI waxaa loo tixgeliyaa inay tahay hay-adda sirdooneed ee qaab dhismeed ahaan ugu weyn hay-adaha sirdoonada dunida. Tirada dadka u shaqeeya iyo xarumaha ay dunida ku leeyihiinba aad ayay uga badan yihiin marka la barbar dhigo hay-adaha kale ee sirdoonada dunida. Operation Cyclone. ISI iyo CIA-da Mareykanka oo ah laba hay-adood oo dhanka sirdoonada dunida meel sare kaga jira, iyagoo isgarabsanaya waxay dejiyeen howlgalkii Operation Cyclone ee Afghanistan si loo jabiyo Sofiyeetkii kusoo duulay. Operation Cyclone oo socday 1979 ilaa 1989, Mareykanka oo keliya waxa uu ku kharash gareeyay $8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. ISI iyadu waxay ahayd garabkii fulinta iyo hubaynta Islaamiyiinta. Waxay tababartay Islaamiyiintii, kaalmooyinkii ay u baahnayeenna u dhammaystirtay. Ugu dambeyntii, howlgalkii waa lagu guulaystay. Midowgii Sofiyeetina waa la jebiyey, laakiinse waxaa ka dhashay xaalado aan la mahadin, dagaallo sokeeye iyo qas joogto ah oo waddanku galay, taasoo ka daran wixii laga ololeynayay. Xarunta dhexe ee hay-adda. Xarunta dhexe ee hay-addu waxay ku taallaa Islamabad. Waxaa lagu dhisay ciid dhooqa ah oo la qalajiyey. Dhismayaasha waxaa kala xidha caws gaagaaban. Declan Walsh, oo ah weriye u shaqeeya The Guardian, maruu booqday xarunta dhexe, waxa uu yidhi, astaan laga argagaxo ma laha. Waxaa waardiyeeya rag dharcad ah, askar iyo eyda urka urisa ee tababaran. Wuxuu hadalkiisa sidoo kale ku xusay mar uu booqday qolalka maamulka sare ee hay-adda oo ku yaala bu'da xarunta, wuxuuna yidhi, xafiiska agaasimaha guud oo ku yaala dabaqa kore waa mid aad casri u ah, korontoorkiisuna jabaqda soo celinayo. Tijaabintii nuclear-ka. Hay-adda sirdoonka ee Mossad oo kaashanaysa sirdoonka Hindiya waxay qorshaysay inay arqaladayso oo ay baabi'iso tijaabooyinkii nuclear-ka markii ay Pakistan samaysanaysay nuclear-ka. Israa'iil waxay diyaarado dagaal ku soo diyaarisay
Magaalada Pathankot oo ku taalla gobolka Punjab, Hindiya waxay u diyaarsanaayeen inay howlgallo fuliyaan, laakiin sirdoonka Pakistan ee ISI waxay heleen xogta dhagaraha lala maagan yahay dalkooda. Pakistan waxay markan u calaamadisay goobo badan inay tijaabadu ka dhici doonto. Goor dambe Jaggi ayaa la go'aansaday in tijaabadu ay ka dhacdo. Diyaarado nooca xamuulka ah oo ay leeyihiin ciidanka cirka Pakistan laguna magacaabo A-130 ayaa qalabkan lagu qaaday. Diyaarad kasta oo noocaasa waxaa wehelinayay 6 diyaaradaha dagaalka ee F-16 loo yaqaano. Qorshahan waxaa dejisay ISI waxayna sahashay in ay rumowdo riyadii Pakistan ee samaysashada nuclear-ka. Kaydka nuclear-ka, CIA, Mossad iyo hay'ado badan oo sirdooneed ayaa ilaa hadda dadaal adag ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen halka uu yaallo nuclear-ka Pakistan. Waxaa ku mahadsan qarinta goobta rasmiga ah ee uu yaallo. Hay'adda ISI oo qarisay halka uu ku xafidan yahay, sidoo kale ilaalo adag u samaysay. Garabka siyaasadda ee ISI ilaa markii dhidibada loo taagay waxay lahayd garab siyaasadda u qaabilsan, waxayna door muhiim ah ka ciyaartaa habsami u socodka siyaasadda dalka Pakistan. Qalabka ay isticmaasho ISI, basaasiinta ISI waxay ku hubeysan yihiin oo ay isticmaalaan marka ay howlgallada fulinayaan hub casri ah. Hubka gaarka ah ee la siiyo unugyada fulinta howlgallada basaasnimo ee Pakistan waxaa ka mid ah FN57 oo lagu sameeyo Belgium-ka, Heckler & Koch USP oo lagu sameeyo Jarmalka, iyo Glock pistol oo lagu sameeyo Austria. Xalqadana maanta intaas ayay nooga eg tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.